Body odor urta jirka ama shiirka jirka. Ma isku aragtahay ur ama shiir aan caadi ahayn marka jirkaagu kululaado, kaasi oo ay dadku kugu dhibsadaan? Urkaasi waxa uu la socdaa dhididka, balse dadka qaar waxa ay qabaan ur daran kaasi oo ku qasba in ay ka walwalaan sidii ay xaaladaasi uga bixi lahaayeen. Walow inta badani urta jirka aysan ahayn wax khatar ah haddii uu qofku qubaystaahina uu ka baaba'ayo, haddana waxaa jira xaalado caafimaad darre oo keena in qofku yeesho ur iyo dhidid zaa'id ah. Jirku waxa uu leeyahay laba nooc oo qanjidho ah kuwaasi oo ay soo daayaan dhididka markii uu jirku dareemo kulayl si loo qaboojiyo. Qanjidhadaasi waxa ay kala yihiin eccrine glands and apocrine glands. Eccrine glandsku waxa ay ku baahsan yihiin dhammaan jirkeena, waxaana laga helaa meel kasta oo jirkeena ka mid ah, balse apocrine glandska waxaa laga helaa meelo cayiman sida kilkiraha iyo qaska, waxa ayna soo daayaan dhidid ka adag midka ay soo daayaan eccrine glandska. Dhididka ma ahan waxa keena urta, balse bakteeriyada jirkeena dul saaran ayaa marka ay la kulanto dhididka waxa ay keentaa urta oo qofka yeesho, si gooni ahna kilkiraha oo ah meelaha uu qofku ka dareemo urta jirkiisa. Xaaladda ay dadka leeyihiin dhididka saa'idka ahi waxaa loo yaqaanaa hyperhidrosis. Marka ay timaadana iyada oo aysan jirin sababo la yaqaano oo lala xiriiriyo, waxaa loo yaqaanaa primary hyperhidrosis, waana xaalado dhif iyo naadir ah. Marna waxaa keena sababo la yaqaano oo caafimaad darri, waxaana loo yaqaanaa secondary hyperhidrosis. Sababahaasi waxaa ka mid ah in qanjirka loo yaqaano thyroid gland uu sii daayo dheecaano ka badan intii loogu talagalay, markaasi oo ah xaalad loo yaqaano hyperthyroidism. Sidoo kaleeto, infekshannada qaar iyo stresska ayaa iyaguna sababa xaaladani dhididka saa'idka ah. Haweenka marka ay gaaraan da'da uu dhiigga caadada ka istaagay ee loo yaqaano menopause, waxaa lagu arki karaa xaaladda hyperhidrosiska oo ah in qofku dhidid badan yeesho. Cuntooyinka qaar waxa ay keenaan in jirkaagu yeesho nooca gooni ah oo ur ah sida xulbada iyo barkloniga. Sidoo kaleeto, tunta iyo basashu ayaa marka jirkeena ay galaan la jejebiyaa, waxaana laga soo saaraa isku dhisyo sida sulfarta ah ama waxa loo yaqaano sulfur-like compounds. Dadka qaar waxa ay leeyihiin xaalad dhif iyo naadir ah oo lagu magacaabo trimethylaminuria. Dadka xaaladani qaba ayaa waxa ay yeeshaan ur u eg sida malayga marka ay cunaan cuntooyinka badda laga soo saaro. Habka ugu fudud ee aad urta uga yarayn karto jirkaaga waa in aad qubaysataa, xiirtaana timaha ka soo baxa kilkilaha, inaad isticmaasho waxyaabaha la yiraahdo cosmeticska ee la isku carfiyo, si gooni ahna walxaha ka samaysan antiperspirantska iyo deodorant-da. Antiperspirantsku waa walxo joojiya dhididka, waxa ayna ka samaysan yihiin isku dhisyo loo yaqaan aluminum-based compounds, kuwaasi oo joojinaya qanjirrada dhididka inay sii daayaan dhidid. Sidoo kale, deodorant-du waxa ay ka samaysan tahay walxo baabi'inaya bakteeriyadii urta u beddelaysay dhididka marka ay la kulanto. Haddii intaasi xal aysan kuu noqonin, waxaa qofka u baahnaan doonaa inuu booqdo dhakhtar, markaasi oo loo qori doono daawooyin iyo productyo ay ka mid yihiin botulinum toxins, kuwaasi oo joojiyo dhididka. Waxaana loo baahan karaa in la sameeyo qalliino lagu saarayo qanjirrada iyo kuwa lagu joojinayo neerfayaasha keena in qanjirradu dhididka sii daayaan haddii la arko inaysan xal kale lahayn. Markaas ayaan kusoo koobaynaa muuqaalkeennii maantana.